بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka kan waxaan idinkugu soo gudbinayaa walaalaha meesha tan iyo badbaada nagala socdo hadiyad qiimo badan weeye waa hadiyad ku socota ruux walba cabsanaya waa hadiyad oo ka faa'iideysanaya ruux kasto deganaansho la'aan ay ku dhacday waa hadiyad ay ka faa'iideysanaya ruux kasto sabir la'aan ay haleeshay waa hadiyad qofka noloshiisa iskaga dhaxyaaday ku socota qof walbo walwal dareemaya qof walbo cabsi dareemaya qof walbo deganaansho la'aan dareemaya qof walbo cibaadadu ku cuslaatay qof walbo noloshu ku noqotay ciriiri ayadoo haddana waasica ruux walba oo xanuun iyo murugo iyo walwal la nool ayay ku socdaan aayadaha kan ay kaga waramayo oo ah hadiyada casharkeenan aan idinkugu sido qaaliga ah quraanku waa caafimaadiyaha qulubta iyo jirkaba quraanku waxa weeye mid indhaha ku kala furaya quraanku waa mid quwo kugu daraya quwadaadii hore quraanku waa mid ruuxdaadii ku sii xoojinaya quraanku waa mid aad nuur ka helaysid meel walbaba aayadahan ka waramay waxa la yiraahdaa aayaadkii xasiloonida ma sha Allah xasilooni ma doonaysaa inaad ku xasiloonaato cibaadadka Ilaahay inaad ku xasiloonaato nolosha kale inaad ku xasiloonatid wax kasto aad haysatid kana faa'iideysatid ma doonaysaa degdeg la'aanta inuu Ilaahay ka saaro oo markaad aayadkan akhrisatid ahadhow isla cajabto tiraade wallahi saamaada ahaan jirin war hadda arrinkaas waxaad ku qabanaysaa si deganaansho ah si u kaadsinimo ah si dadaal ah si ku jirto sugnaansho meeshaad ku qaban jirtay degdega fudaydka hadii lagu qababa bacda sabir la'aanta marka laga yaabo isdiraabku kugu hayay qalaq iyo naftaada inay sugnayn ku hay meeshii waxaas oo dhan ku hayeen kadib aad marka aayadaha akhristaad ka wareegtay adigu istiraadid wallahi ilaahay nimco ku galay ma sha Allah maanta qof habiya tahay maanta waxa tahay qof degan maanta waxa tahay qof faraxsan maanta waxa tahay qof jirkiisa u sheegayo inuu yahay qof rayn ku nool intaas oo dhan hadaa doonaysid aayaadkan ilaahay idinkiis ayaad ka helaysaa oo quraanka kariimka ku jira kitaab kale iyo buug kale toona u doori maysid في سورة البقرة في سورة التوبة في سورة الفتح صدحنا سورة ضد آياتها عن اللو ذاقيو كتيران آيات كان وحل إرادة آيات كي حسلوني ذا وانا لح آيادات وي ما شاء الله حتى ما بدنا منا عليس بدنا لح آيادات وي هل آيات وحي كتيرتا سورة البقرة لبا آياداتنا وحي كتيران سورة التوبة صدحنا waxay ku jiraan suuratu inna fatahna say isku xigaanday koow labo saddex baa leeyahay waa jaranjaro noloshaadu jaranjaradaas ay maraysaa biidnillah suuratu tawba hal aayad weeye qofka doonaya weeye in qalbigiisa u deganaado qofka doonaya weeye in noloshaani kala dhaqaaqayso meel ay u socoto aan la aqoon inuu ka baxo ayaa akhrisanaya hal mar uniyeysanaya isku tufaya biyaha ku tufanaya noloshiisa ku tufanaya qolkiisa ku tufanaya ganacsigiisa ku tufanaya haduu ganacsigu deganaansho la'aan aad ka dareentid hadaad noloshii kale aad ku jirtid deganaansho la'aan ka dareentid xitaa hadaad wax diyaarinaysid barnaamij oo kale aad ku wareersantaa isleedahay barnaamijkan ma qabataa kan ma qabataa u dhex wareertay akhri midka ugu horeeya ayaa ku deganaanaysa noloshaada markaasi noloshu waxay ku noqonaysaa nolol nidaamsan oo aan fawda lahayn oo tartiib ku dhaqaaqaysa hadaad doonaysid in aad tusaale kale jaamacad ka baxayso buug diyaarisid maadada diyaarisa takhasuskaada maxaa ka dhigtaa waa ku wareertay caafimaad baa ka dhigtaa haday diini noqoto ma fiqi baa doorataa ma xadiis baa doorataa ma tafsiir baa takhasuska gooniga haday noqoto xagga maadiga xisaabta doorataa computerka sayniska xagga mid kasta waa markaad fiirisana faa'iidooyin badan buu leeyahay waad ku dhex wareertay aayadaha akhris mid baad ku deganaanaysaa akhriso aayadaha biidnillah qalbiga nolosha farxadda wuxuu dhan way deganaya insha Allah ta'ala aayada koobaad suuratul baqara way waana hal aayad suuradaasi waxaan ka soo qaadanayna ilaahay baa yiri markuu ka waramayay reer bani israa'iil iyo boqorkoodii iyo shacabkii la jiray ayaa rabbi wuxuu leeyahay waqala lahum nabiyuhum إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت
فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة آية لمبركيدوا لaba boqol afartan iyo sideed waxayna ka warantay aayadaasi suuratulbaqara ku jirta nabiyullaahi muusa haaruun iyo tarankii iyo xasiloonidii laga dhaxlay oo ka tegay. aayadda labaad suuratu tawba weeye. ilaahayna wuxuu yidhi thumma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almu'miniina wa anzala junuudan lam tarawha وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لمبركيدنا ولباتن يلح سورة التوبة أما سورة البراء وآيات آيات لحظة كم إذا هذا اللبات تصدق حدو حوي إسلا سورة داسيوية فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة آيات أفرتناد ويلا مركز انتاسي مركز لقى سوقر بصدح داسي صدح ذا كلنا وحي كجيران سورة إنا فتحنا سورة الفتح تنكوبة وحوي وأفراد آياتها اللي حدا كميدا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. آيات أفراد وهي سورة الفتح تن شنادي وحويه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات 8 سورة الفتح وي تن وقدم بيس اللحاد صدح ذا آيات سورة الفتح كجرنا كم ذا وحويه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. والله باتن إليه سورة داسي إنا فتحت كم ذا آية ما شاء الله حسلوني يدقنا شيء المامية إن النقطة قف دقنا شموتي فكره ولا شيء سكفكره رفاتك عريرك كبح صدحدان سورادود اللحدان آيادود كوكلا جيران او فيرسدا حسابيو هورتا صدحدا سورادود بوا مدني مكي ما وحل الرسول كإلهي نولال هورو كسو غوري نولال دنبنا وكجرو وحل وقت مكي دباتو كسو وريغي نولال عصوبي مدينة ديغان وسا يعني هورو واقون وسو غوري بي كورمين صدحدا بوا مدني البقرة التوبة الفتح يعني القرآن كالقول لي مدني قوحة وهجرة الرسول كدب قرآن كسو دقال لقوة انت بدلنا قرآن كو ومكي أساق لفتر كيسو. سورة البقرة محي كورنت تكاليف بكورنت بالآدم كلا صاريو وحلوت شدينيو أحكام لصاريو الله كعبسك ان هدي الله كورنيا وح بدن انو قفكو عبادوين كسميو وناقا كديرتو بسورة البقرة كورنت markaad cibaadooyinka samaysid wanaaga samaysid maxaad haleelaysaa Allah ka cabsi baad haleelaysaa. Allah ka cabsi markaa helaysid maxaad helaysaa deganaashaad helaysaa. deganaashaha iyo Allah ka cabsiga iyo cibaadada markaa helaysidna waxaad helaysaa toobad iyo in aadan mustaqbalkii hore aad ku gabad fashay aadan joogtayn. markaa toobada iyo khayrka samaysid oo Ilaahay u toobadkeenna maxaad helaysaa gargaarkaad rajaynaysid iyo fatxiga rajaynaysid halkaas aad ka helaysaa. walidaalika baqara tawba fatxi soo ma aragtaa horta cibaadada bilow deganaashu waa imaanaya tawbada imow deganaashu waa imaanaya tawba markaad heshid fatxigu waa imaanaya gargaarku waa imaanaya nasrigu waa imaanaya ma sha Allah. suuratul baqara nabigoodii baa wuxuu ku yiri reer bani Israa'iil xilliga nabi joogay mulkiga iyo boqortooyada boqorka kan waxa weeye inuu idin keeno sanduuqii xasiloonidu ku jirtay noloshii xasiloonidu ku jirtay ilaa xaqiis ka timid oo ah wax taran ka haray ah nabi Haaruun iyo nabi Muuse oo malaa'iktu sido dagaalka markaad galaysa sanduuqana leedo hordhigaya waa dagaalamaysa ma cararaysa laana sanduuqa xasiloonidii barakadu ku jirtay baa ilaag yaala waa reer bani Israa'iil. ولذلك إلهي آيات وين بهالكاسي يدين قلي هداد مؤمنين تين مركا آيات وحلقوا شيء سكينة
فيه سكينة من ربكم سكينة وحلو جدا دجناشة نولاد يدجناشة قلبيات قفك قلبي يسيور كيسو مركو دجنيها نلاشي سكلنا الدجيسة ساسدت يد با إلهي وشاقة تبارك وتعالى كدب با سورة التوبة مركوني ما نحكي ورنتي لبضع آيات التوبة كتيرة مدنا وحكي ورنتي مالين يعني عريري الرفاض رسول كلا يسوي جحي ومالك يجرودي وي مالك أسقى يا أبو بكر قد كجلين وي المشركين تي قريش رادينيين ديديين ويربان إني دلال أما السوعليان مالك هجروني وي مالك عدو جيس كعرري ويا أسقى يا أبو بكر قد بيجلين ومالك أبو بكر يرمرك قد كجلين المشركين تي قريش نقد كأفكي ستاجيهين أبو بكر كوي رسول كلا يا والله متكوت هذا صافيري ونأركيا مركز إلهي حسلوني كسودتي كوي مشركين تانا كإن تري عريري جاس أي كسودت عريري جاس وكل ما كويسته ها deegaan kama taqaanid ha noloshaada meeshaad ka aadid garan mayso waad wareerka kuwana ka dajinaya aayada kale waxay ka waramaysaa maalin asaga laftirkiisu iska hore ka sahlanay maalinkii hadii alla ku hawaazim sanadii 8aad ee mushrikiintii intay soo weerareen nabi maxamed asxaabadiisii markii hore la jabiyay kala carareen kadibna adduunyadu ciriiri ku noqotay iyadoo waasica kadibna ilaahay nasri ku soo dajiyay xasilooni oo mushrikiintii ay ka adkaadeen سورة الفتح مركات مادين وحكى ورميسا كوا وقت أنك سهلنين مالك وحكى ورميسا حديبية النبي محمد بقلال كيلومتر أقل في سنة صوتشيري مركم مكوسو دوي هدور 8 كيلومتر لا كيلومتر وشلو أي مشركين تي قريش لهن مجلسين هبرت هذا كتاه سو معلمه سو سعود النبي محمد عليه الصلاة والسلام هشيس كحديبية لقري هشيس كان وقت سنها وها محمد وكوا ذي كاسو عرّا نجوا نو إمادة ما علينا لكن أنا وكوا نجا عرّا وذي كوا إمادة نوسو علي هشيس خلف سنبوا حتى عمر يري رسول كلاه يوم محمد دل النمد دين تيجا دحدا ذو قادنا إننا صانوا وحكم التاجنين كوا صوبات الكم التاجنين وحفري عمر حوجا ظاهر كان لكن نصر بكذب بي مركو عمر سيدا يرى سوق حناخسن بالرسول كلاه يحير سيدا سيله أمر ما أمر كلاه من ديدي كلا أبو بكر بوتك مرك سيدي وكله كيري أبو بكر نفس الكلام هذا الكلام محمد بكو جواب ويقول الله بأن أمري رسولك الله بأمر لأن محايا لودقية أبو بكر نبي محمد ودقية حقا حلقية بقى أديك عدو كوكو حد كتبين يعني كنترول كادي ويديد هدونا دنبية كلا قشيد لكن ولا حكمية خلط كالصولغاء قال مر والباء وناس حكمية سؤال نخلط هذا كله نبي الله محمد خلط بيك قالين أبو بكر وخلط يلا قالين عمر واسق لف السعي لكن نصر بقى كدم ويس حكمينية ده مركز ضمن محمد حديبية النصر بقى على خيبر بقبسدين ما كان لبسنا كدي بقبسدين أسري بكدم بي أنت وإلهي وكسودتي سكينة يحسلوني وي مركا حسلوني سكينة هدادوني سيد آيات كان وي تنضم بإلهي وحوليه ربي وحو كسودتي يحسلوني دي سير رسولك إلهي يا مؤمنينتي وسورة التوبة كدي بقى الله وحو سيعيد ما إن أركين كوي مشركين تانا الله وعذابي وانا لقاك أرصدي أو يكجوريستين آيات ذكرنا في سورة التوبة إلى يحليه النبي محمد بكسو دتيي حسلون دي سوحون كو أيد عيدا كلمة دي إلهينا قرب يلي تيم مشركين تنا هاس بيلي إلهي بعب سيد هاس يلي فكر كهاس يلي كرنا صامر سين يا فرحة دي وناجع هذا ينوني معنا سورة فتح إلهي وحو كسو دتيي قلوب المؤمنين دحضوضا حسلوني إيمان بسيادة مركا ولذلك حسلوني مركا إيمان بكوسيادة نساء عبادة كوسيادة نساء ولذلك إلهي الجنود يعيد مدي السماوات كي يكون دولك إلهي كتاغيري وحكالو كورما إلهي نكرر للنقضي ما ننتي بعادة كلق لي النبي محمد حديبية جيت كوستي سحابه وغيري أي كرب بلامين أنت عن شيء كلا قلين ويا كهر مركز قلوبته إلهي حكوشو دتشي حسلوني لأن إلهي محو قاعدي قلبك ودو حكوشر وناك هذا أركتي ضد أن هشينين أو أن إسوافقين قلبيض ضحون لأن قلبي جوده هدو وناكسية وإسوافق لهاي ولذلك لا يحلي هاي فعلم ما في قلوبهم قلوب توضو أيو أجاد إلهي إني وناكسنت هاي كذبوا فأنزل السكينة عليهم مركز هشين إنسان مركز حسلوني هني سام كدرس كذا ليش يصير ولا كليش يصير قبيل ككل درس كذا ليش يصير حاس كذا ليش يصير نين كذا ليش يصير عروت هذا ليش يصير نرش كذا ليش يصير تتكلم عامل ليش يصير مركز حسلوني ده ليس كذبوا فرجك كفرية لكن عقدة يحدق يحسن مدى يأرح مدى يكبرك يسلم وين أنت يوحى صبرا حقرات ذيك أبوحان حسلوني هلميس هذا يسحونية شمع كان نقنيسا ضد كان إفنية
asagina isku bay midda kale waa maxay midda kale waxa weeye suuratu fathi id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya maalinka xudaybiya way mushrikiintu xamaasad iyo casabiyad iyo qabyaalad bay inta qalbigooda gashadeen say maxamedkii naga tagay shalay oo naga hajiray oo dadkeena ka haystay miya noo imaanay isagoo cumraysanaya maya ayaga xasilooni ma hayaan way degdegayaan laakiin ilaahay wuxuu yiri wuxuu ku soo dejiyay rasuulkiisa iyo muuminiintiisa xasilooni bedelka kuwaas markaasoo alla wuxuu laazimiyay kelmadda taqwada la ilaaha illa allah laana ayaga xaq u leh ehelkeedina waay ilaahayna wax walba cilmi buu leeyahay cabsida ku haysa ilaahay cilmi buu leeyahay lixdan aayadood marka wax kasto dareentid oo cabsiya culaysa fudayda oo macnaha fudayd nolosha degdeg ah sabar la'aanta oo akhriso insha Allah ta'ala waxaad ku wareerto dhan waxaad kala saari weydo dhan xaq iyo baadilka xataa dad iska ka dhacdarsan akhriso way ku kala saarmayaan li'anna maxaa ku jira aayadahan suuradaha saddexda ku jira nuur baa ku jira qawinimo iyo awood baa ku jirta oo ku xoojinayaan waxa kale oo ku jirta ruux way ku nooleynayaan way ku nuurinayaan waxay ku kala iftiiminayaan nolosha adduunyada midda aakhiro noqon maysid adduunyadiisa qof iibsada noqon maysid yani qof ka sii daroon aakhiradiisa u iibsada qof kale adduunyadiisa xaqii baadil iska darsama la khaldo lagu adeegto maskaxdiisa aqligiisa la kaxayso noqon maysid akhriso nuur baa ku jira ruux baa ku jirta ku nooleynaya qalbigaaday doog ka soo dhalanaya qawinimo tabar bay ku siinayaan energy insha Allah ta'ala ilaahay baa ku dajinaya biidnillah hadii Allah yidmo waa suurado iyo aayado qaaliya ولذلك كان دونينا إن نلشين حسيلوني كم موجسان أدنكو آياتهان عسكنية أهر كعية نلشين حسيلوني يدقناشو وآياتهان في سورة البقرة في سورة التوبة في سورة الفتح البقرة لغير مال بالكوسين التوبة لغير توبة بالكوافت الفتح وقرقار يهيلو مركا إلهي قرقار كيسي هيليه سي دقنيسي سكوه الآياتهاس إن شاء الله تعالى آياتها سوقرن سيداس أنو كلا هرمريني وكلا هرية قيبته سي كومنتيغا سوغو لينكو تاغن يهي فيديوغان عوانكيسا قيبته سكفيري أخرسو بيها كتفو انتظا كتفو نلوشا كلا كو أخرسو قويس كادا و أخري قريقادا يقول كادا كو أخرسو نلوشا دا و أخري دركادا كتف كم مايرو بإذن الله أدبال ما سنتي ميلكسا جوكتان با إلهي أيضا حفظو walaalihi nakale 10 kaanu sagaarin laga yaabo in uu caafimaadkoodu yahay gaarsi oo la wadaag ado taageerada ka hilmaamay meel aad joogtaanba rabbigay haydan xafido barakallahu fiikum